bismillahi raxmaan raxiim anigoo cabdilaahi cali ibraahim geeli halkan waxaan kusoo gudbinayaa haddii allah awoodda leh ogolaado gabay magaciisa la yidhaahdo cayayaan murtida iyo ujeedooyinka ku duuganba waxaad ka dheehan doontaan mirihiisa waxaana la odhan karaa in badan oo soomaaliyeed waa ka xogagaal wuxuuna ku wajahan yahay baraha bulshada dhacdooyinka iyo mushkiladaha soo noqnoqonaya oo aad moodo in la caadaystay ama ay tahayba wax dhaqan galay nin baan maalin waxaan ku yidhi arrimaha kan ka socda baraha bulshada ama ka dhacaya ee noocyadan loo adeegsanayo rag badan oo youtuberada ka mid ah ay adeegsanayaan maxay tahay arrintu wuxuu igu yidhi waxay scrap bay ku raadinayaan fees iyo wax noocaas ah waxaan la yaabay dabeeto youtuber kale oo ummadaha kale ee adduunka ku dhaqan ah wadamada kale youtubero ka soo jeeda habka ay u adeegsanayaan nin baad arkaysaa 8 milyan iyo haysto scrap ah oo aan hadlaynba maba hadlayo inuu dhagool yahay iyo inuu hadlo lama kala yaqaan farahan buu tilmaamo ka bixinaya sida maaska loo xirto oo kale iyo intaas aanu haystaa oo scrap iyo fuse ah mid kale oo u dhashay dal kulli Afrikada tana maxay ahayd ruwaadada mujmalaheeda dadku ka qosliyaa bis xataa wax ma hadlayo wuxuu soo bandhigaa waxyaabo lagu qoslo inta ay ka badan buu haystaa marka rag ka mid ah youtuberada Soomaaliyeed qaabka u adeegsanayaan ayaan aad u la yaabay iyo been abuurka iyo dhibaatooyinka iyo mushkiladaha Soomaalida dhexdeeda saameynta ku yeelan karta gabdhaha Soomaaliyeed ee youtuberada iyaga la hadli maayo gabar Soomaaliyeed markasta sharaf iyo karaamo ayay mudan tahay iyo la ilaaliyo dadnimadeeda iyo xuquuqdeeda iyo dhaqankeedaba waxaad arkaysaa in badan oo halkaas waxay ku soo qorayaan been abuurku waa sii dheer yahay waxaad arkaysaa halkaas nin baa wuxuu ku soo qorayaa hebel oo ra'iisul wasaare ama madaxweyne ama mucaarada ama maamul goboleed ama ganacsata ama wadaad hebel oo arrin noocaas ka hadlay waad furaysaa mise ninkii uu sheegay bada wuxuu maartay meeshan ku soo qaatay kuma jiraan isagii un baa waramaya ninkii youtuberka ahaa tusaale gabdhihii waagi dhowdo lagu afduubay Kenya nin baa wuxuu ku soo qorayaa xabso oo xog sira bixisay oo waraysi laga qaaday baan idin haynaa waad furaysaa mise isagii baa waramaya oo way marka xabso maadiga ahde ilaa iyadii meeday ma bahaynaba dhibaatooyin kale hebel baa hebel kaba la dulmaray heblaayo kaba la dulmartay hebel oo codsira laga duubay heblaayo muuqaal laga duubay tumashaa heblaayo qaawan xagan hebel oo qaawan hebel oo halkan qabiil hebel iyo halkan oo mushkilada aad u weyn waayahay tixdana dabeeto ka curatay in dhaweyd baan leeyahay gabay waanigan curine caawna ma doonayn inaan soo celceliyay sidaan baraha uga caaganahay baan cabirayaa youtuber caqiibo ma leh ceebta la sameeyo waayeel canaantiyo murtiba lagala calwaayo siday maanta uga cayshayaan waaba caariyo adduunyadu cadceeday tagtiyo caadka hoos maray cirka niman ka soo hadal hawada laga ceshiimay inagana sagaara cabtiyo ma cabto weeyaan asri weeye Facebook iyo aynad gooniya cilmi iyo marba laga bartaa shay ku caawima marna waa ciqaab aakhiriyo cadowgii naareed Soomaalidu cuqubaday gashay cirib ku weydaayay arigay tagtoba waa inay cawtad gelisaay markii caar dhuubtiyo baraha ciidanku isdhaafay asar weerar goortay tagtiyo cududa maadhinka goortay iswada caaridee cunaha la iskooyay aruus iyo ninkii wali ahaa carafba loo diiday culimada karaamaysan iyo caabud lagu maagay casharkay baxshaan maalintii codad la sii saaray cuqaashiyo markii dawladaha lagu cambaareeyay roolaha gaboobiyo barbaar caasha lagu qaatay amool iyo dhagoolaba markii laga caraysiiyay curiyaan iyo ninkii luga lahaa cabashadayn waayay caruur iyo haween maalintii cayda laga buuxshay casrad iyo haday hooyo tahay lagu cisayn waayay cadceedii timaadaba markii cawre lagu baahshay qof waliba inuu caan noqdiyo calafba loo doontay in iyo dhunkaal maalintii caysh ka bixi waayay oo ay sidii cayd la dhacay awsha ku eriyootay dadkii wada caweyn jiray markay kala carrow siisay cashiradu markay kala goday caabuq lagu beeray cuqdad iyo qabiil maalintay canabka u fuushay Soomaalidu inay cirib godiyo ciilqab lagu maalay cirif iyo ila cirif markay cadanyo saamaysay awadaranka fiidmeerta iyo ciyowgu dhilaabay aray iyo wiray gaadhay loo cunsuriyoobay labadii caashaqa markii loo cagdhigi waayay aqalkii camiran maalintii culayga loo qaatay mid lagu canaantiyo markii ceelaliyo guudhay ciideena hooyo iyo in badan calanka eedaysay kolkii maxamed lagu caasiyo amaladii diinta adaabtu samaystay iyo rabbiga laga cabsoon waayay cibaadada markii laga tagay caymis laga raacay caadooyinkan iyo markii dhaqanku caatoobay suugaantu ciir noqotay iyo caanayaa shuban cajiin heesii laga dhigiyo cananadii kaynta oo gabay ninkii curinaya ku cuntami waayay
cibaarada adduunkiiyo markii carunka soo saartay caddaan iyo madow maalintay ruux cafiyi weyday cayayaan markii lagu kacshiyo ciidhada iyo boodhka caddaymaha dhexdeeniyo markay ceeb ka tegi weyday codad layska duubay iyo sirtii caalamka u dhooftay goortay colaad dhalisay iyo coliya duulaanka caddalool markii loo rogiyo cugasho laydiidiye caqli baay ha taageero iyo ruux calool xumee soomaalida cawaala u ballana caafimaadka ah waa golihii abwaanada afkii dhaqanka shanta Soomaaliya gaadh shansa